ma oran karnaa mobilkan Huawei Nova 5T waxa uu ka mid yahay mobiliskii ugu fiicnaa ee soo baxay sanadkii 2019 dhamaysan muuqaalkan si aad u aragto astaamaha mobilkan iyo bal inaynu ku dari karno mobiliskii ugu wanaagsanaa sanadkii 2019 feature-ka ugu horeeya ee uu ku wanaagsan yahay mobilka Nova 5T ayaa waxa weeye waa display-ga mobilkan ayaa waxa uu cabirkiisu yahay 6.2 inch isagoo ka samaysan display-ga noociisu yahay IPS display. waxyaabaha ku wanaagsan yahay mobilkan ayaa waxa kamid ah in hadhow tolashayga aad ku eegayso ama aad ku daawanaysaba amba sidoo kale aad ku ciyaaraysaba uu si fiican u kala saari doono midabada iyo in sidoo kale uu si baahsan ugu baahin doono shaashada mobilka hadba shayga aad ku eegayso iyadoo oran karno waxa ugu wacan inuu si fiican u kala saaro colorska resolution-ka mobilkan oo cabirkiisu yahay 2340 ilaa 1080 pixel. waxaanu samayn doonaa waxaan marbal ku eegi doonaa in ku ciyaari doonaa gameka loo yaqaan PUBG si aan u eegno balqaabka uu kala saarayo midabada iyo sida uu soo gudbinayaba shaashada mobilka. waxaad arkaysaa markaynu ku ciyaarino gameka PUBG inuu si fiican u kala saaray colorskii uu lahaa gameka iyo in sidoo kale aad arki kartaba inuu ku tusayo shadowga amba harka shayga aad ku ciyaarayso. mar kale waxaan ku tijaabiyay balqaabka uu soo gudbinayo markaad ku eegto Instagram sidoo kale waxaan ku eegay Facebook-ga. feature-ka labaad ee ku wanaagsan yahay mobilka Nova 5T ayaa waxa weeye waa xagga performance-ga. yacni haddii aad tahay qof gamer ah amba qof ku iibsado mobilkaba inuu ku isticmaalo apps-ka culus sida games-ka oo kale mobilkan waxaad kala kulmi doonin wax culays waxaan oran karnaa taa waxa ugu wacan waa chipset-ka noociisu yahay K980 oo kamid ah chipskii ugu dambeeyay uguna awoodda badan leh iyo sidoo kale 8GB oo RAM oo ku raacda. intaasi waxay ku saamaxaysaa in mobilkan uu si fiican kugu rangaleeyo dhammaan app kasta oo aad ku isticmaalayso. mobilkan ayaa waxa uu ku yimaadaa mar maskaxdiisa guduhu ay tahay 128GB RAM-kiisuna uu yahay 6GB oo RAM iyo mar maskaxdiisu tahay 128GB laakiin RAM-kiisu yahay 8GB oo RAM. waxa uu badanaa la mid yahay mobilka noociisu yahay Huawei P30 Pro oo kamid ah mobiliska ugu fiican ay soo saartay shirkadda Huawei. astaanta saddexaad ama feature-ka saddexaad ee ku wanaagsan yahay mobilkan ayaa waxa weeye mobilkan ayaa waxa uu fingerprint ku leeyahay dhinaca badanaa mobilku marka uu kooban yahay sidoo kale culayskiisna uu fudud yahay uu yahayna mobil gacanta si fudud aad ugu qaban karto sidoo kale fingerprint-kana uu ku leeyahay dhinaca waxa uu kamid yahay mobiliska ugu fiican ee dadku badanaa aad ku jecel yahay. fingerprint-ka mobilkan ee dhinaca ayaa wali waxa weeye mid si degdeg ah uga furmi doona amba sensorkiisa uu fiican yahay marka aad ku xidhato. sidoo kale security ahaan mobilkan waxaad ku xidhan kartaa oo kale face unlock. astaanta afraad ee uu ku fiican yahay mobilka Nova 5T ayaa waxa weeye waa kamarada. mobilkan ayaa waxa uu kamid yahay mobiliska leh 4 kamaradood isagoo waliba leh kamarado aad u qurux badan kagana maarmi karto dhammaan waxyaabaha aad uga baahan tahay. mobilkan ayaa cabirka kamaradiisu waxay kala yihiin kamarada ugu horeysa ayaa waxa uu cabirkeedu yahay 8 megapixel xagga kamarada labaad cabirkeedu yahay 16 megapixel xagga kamarada saddexaadna cabirkeedu yahay 2 megapixel iyo 2 megapixel oo ah kamarada depth sensor-ka. sidoo kale kamarada dambe ee mobilkan ayaa waxaad ku duubi kartaa muuqaalo cabirkoodu yahay 4K videos. kamarada hore ama kamarada selfie ee mobilkan ayaa waxa iyaduna cabirkeedu yahay 12 megapixel adigoo macala kamaradana ku duubi doona muuqaalo HD ah. mobilkan ayaa kamaradiisu saan sheegnay waxa uu kamid yahay mobiliska kamaradoodu aad u fiican tahay. sawiraanta halkan kaaga muuqda ayaa waxay yihiin sawiraantii aan ku soo qaadnay kamarada mobilka. haddaba waxaad si fiican ugu arki kartaa bal nooc ay u fiican yihiin ka sawiraanta lagu qaaday mobilkan hadday noqoto sawiraanta lagu soo qaaday portrait-ka iyo hadday noqoto sawiraanta lagu soo qaaday night mode-ka iyo hadday noqoto sawirada lagu soo qaaday selfie-da amba kamarada hore ee mobilka. su'aasha badan dadku isweydiinayaan ayaa waxay tahay talow mobilka Nova 5T ma ku shaqeynaya Google Play Services-ka? jawaabtu waxay tahay haa waa uu ku shaqeynaya. mobilkan ayaa waxa ku jira Android shaka noociisu yahay Android 9 adigoo waliba u update gareyn kara ilaa Android 10. markaad mobilkan iibsato dhammaan waxaad ugu tagi doontaa mobilkan inay diyaar kugu yihiin Google Play Services-ka hadday noqoto YouTube-ki hadday noqoto Gmail-ki hadday noqotoba kuwa kalaba. ugu dambeyn waxaan oran karnaa markaynu eegnay performance-ga mobilkan kamarada mobilkan iyo sidoo kaleba display-ga mobilkan iyo inuu yahay mobiliska ku leh fingerprint-ka dhinaca
kuna fiican gacan qaadashada kaliya. Waxaan oran karnaa mobilkan waxaan u aqoonsan karnaa inuu ka mid yahay mobiliskii ugu fiicnaa ee soo baxa sanadkii tagay ee 2019. Mobilkan ayaa hadda waxaad ka iibsan kartaa shirkadeena muraso.com adigoo waliba ku iibsan kara hab fudud, habkaas oo ah inaad isticmaasho adeegga isku beddelka adigoo keeni doona alaab kadib qaadan doona mobilkan Nova 5T.